wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay qarax miino oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxa inoo soo diray wariyahayaga Axmed Cabdi Cali. waxaa faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan qarax miino oo barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka saldhigga degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, waxaana lala egtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse markii uu gaarigooda gudbay ayuu qaraxu dhacay. wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga qaraxa ka badbaaday uu watay taliyaha saldhigga booliska degmada Dayniile Macalin Faarax iyo ciidamo la socday. goob qashin uu yaalay ayaa lagu aasay miinada oo wadada dhinaceeda ah, sida ay xaqiijiyeen dadka ku nool degmada Warta Nabadda. afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xildhibaan oo gaaray goobta ayaa la hadlay warbaahinta, waxa uu sheegay inuusan jirin khasaaro ka dhashay qaraxaasi. waxaan mahad celinaynaa marka hore laamaha warbaahinta madax bannaan, gaar ahaan kuwii soo gaaray goobta uu shilka ka dhacay oo ah inta u dhaxaysa jaamacadda Savana iyo jaamacadda Afrika oo ku taala wadada Xarar Yaale ee magaalada Muqdisho. waxaad arkaysaan arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulkeena, qalabka ay u isticmaalayaan sidii ay waxyeello ugu geysan lahaayeen. isla markiiba goobta shilka uu ka dhacay oo ay marayeen ciidamo ka tirsan booliska, waxaa soo gaaray ciidamo gurmad ah. ma jiraan wax khasaare ah oo haba yaraatee soo gaaray ciidamadeena iyo dadka rayidka ah ee goobta ku sugnaa labadaba. qaraxa nuuciisu wuxuu ahaa qaraxyada dhulka lagu aaso ee loo yaqaan miinooyinka. waa arkaysaan darbiga iga dambeeya khasaaraha uu geystay waa wuxuu Ilaahay ku ekeysiyay halkaan aad arkaysaan ee ah darbigiina ma dumin, laakiin qalabka ay adeegsadeen waxaa ka mid ah sida laamaha dambi baarista ama marka ay qaraxyo dhacaan qalabka aan helno. waxay tani marqaati u tahay ujeedadoodu inay ahayd in ay ku xasuuqaan ciidan ka tirsan dawladda ama ay dhibaato ugu geystaan. Ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa in wax khasaare ah oo na soo gaaray aysan jirin. muddooyinkii dambe ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada lagu xiro gaadiidka ay wataan saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana qaraxyadaasi ay noqdaan kuwa aan khasaare geysan sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee dowladda. Axmed Cabdi Cali, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.